Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan wada-tashi ah isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir 20-ka bishan May ee aynu ku guda jirno. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd golaha shacabka ka hor sheegay in mas'uuliyaddii doorashada uu ku wareejiyay Ra'iisul Wasaare Roble, arrintaa oo muddo dheerba ay si isdaba joog ah u dalbanayeen siyaasiyiinta mucaaradka ahi ee dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa si loo soo afjaray ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhashay barnaamijkii muddo kororsiga ku raacay madaxda dowlad goboleedyada dalka in dib loogu laabto hanaankii doorashada ee 17kii Sebteembar ee sanadkii tagay ee 2020. Afhayeenka dowladda Maxamed Ibraahim Mucalimu oo warfidyeennada kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Roble oo ahmiyad siinaya dhaqangelinta heshiiskii 17kii Sebteembar uu isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبله waxa uu casuumaad u diray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir isaga oo ku casuumay inay ka soo qayb galaan shirka wada-tashiga qaran ee dhamaystirka doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17kii Sebteembar kaas oo ra'iisul wasaaruhu u mudeeyay 20ka bisha May oo ah maalin khamiisa. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu rajaynayaa in madaxdu ay ka ajiibi doonto isla markaana shirka laga soo wada qayb gali doono. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuu ka codsanayo in ay madaxdu maalinta ka horeysa Arbacada ama wixii ka horeeyay ay yimaadaan si shirku uu bilowdo waqtigii loo qorsheeyay. Dad badan baa laga yaabaa inay is yiraahdaan maxaa 20ka loogu dhigo hadda shirkii maaragtay si dhaqso loogu baaqi waayay. waxaad ogtihiin in hadda aynu ku guda jirno 10kii u dambeeyay oo ay bilaabanayso 10kii u dambeeyay bisha Ramadaan oo runtii xilli aad muhiim u ah dadka Islaamka ah sidoo kale ciidiya imanaysa iyo wadci marka waxa la isla gartay in xiriir ama la tashiyo la sameeyay ra'iisul wasaaruhu madaxdaas in ay ku haboon tahay in laga dhigo 20ka. waxaan rajaynaynaa shirkaas in dhammaan laga soo wada qayb gali doono. ummadda Soomaaliyeedna maaragtay waxay ka filaysaa shirkaas insha Allah in uu noqdo shir horseeda kii heshiis lagu gaari lahaa doorashooyinka isla markaana dalka ay ka dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah. aad iyo aad u mahadsantiin.